السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته ونسلام يا دمانتين إن شاء الله أدما إيدي سلام يا دمانتين وحوغا بيزي ونغضي على يرى الهادو وحوغا وويك ما إيدي مقنا إن شاء الله مركا إن الحمد لله رب العالمين اسكيرا حوغا ير هرقب أيا يورا داعي لكن الحمد لله وفي عنهي ما أنت وحايدي سيدا ما شاء الله geed uu rasuulku ammaanay calayhi salaatu wasalaam. marka waxaan rabaa maadaama waxa uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yuumin axadakum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi. ilaahi subxaana watacaala qofku ma rumeeyo waxa weeyaan waxaad naftaada la jeceshahay walaalkana la jeclaatid. marka insha allah waxaa idila jeclaaday waxaan aniga nafteeda la jeclahay in aydin soo gaarsiiyo maadaama aan ka dhex arkin bulshada iyaga oo ka sheekeynaya. markaa maanta waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysatiin. waa geed aada u faa'iido badan oo rasuulkuna ammaanay, fiitamiinaad badanna waa ku jira, waanaad ka faa'iidaysan doontiin insha allah. inaad isticmaashiin ayaan aada idigu boorinayaa dhammaantiin. kolley eshiyaanka waa isticmaalaan hindida ayaan kasoo iibiyey. waa fruit caadiya laakiin insha allah systemka loo sameynaya ayaan rabaa in ayda tuso insha allah. carabtuna aada buu isticmaalaan. waxaa laga sameeyaa jam ayaa laga sameeya aba malab ayaa laga sameeyaa insha allah. maanta waxaan isku dayaynaa maadaama rasuulkani noo ammaanay calayhi salaatu wasalaam, xadiiska ayaan soo qaadanaynaa. xadiiskaas waxa weeyaan horta geedkan asafrajal ayaa la dhahdaa. asafrajal ayaa la dhahdaa. waa adeyg weeyaan insha allah. waa adeyg yahay googoyntiisa insha allah. waan googoynaynaa insha allah. waana suna nabawiya, sunnii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. inaan ku dayno weya rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam. xadiiska hadda inoo akhriyo insha allah. qaala dalxa binu cabdillaahi radia allahu canhu, asxaabiga ilaah ka raali ahaadee, ataytu nabiyu sala allahu calayhi wasalam fii jamaacati min asxaabihi ومعه سفرجلة يقلبها فلما جلست إليه رمى بها نحو ثم قال دونك هي يا أبو محمد، فإنها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بدحاء الصدر صدرك. مركا إن شاء الله حديث كاس أيان إنه معنين دونا إن شاء الله. أصحابي قاسي abu dalxa wuxuu ka sheekeynayaa geedka ayuu ka sheekeynayaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa la fadhiya oo isagoo sita geedkaasi. waxa weeyaan dhulka ayuu ku rogay. markuu uu dhulka ku rogay wuxuu yidhi waxa u wanaagsan yahay wadnaha, wuxuu wanaajiyaa oo kale nafta, jirhka. ilaahay subxaana watacaala naftanu inagu abuura ayuu wanaajinayaa. wuxuu kaloo fiican yahay laabta, waxa kuu fadhiyo oo dhan ayuu kaa hagaajinayaa insha allah. rasuulku haddana wuxuu leeyahay xadiis kale calayhi salaatu wasalaam, qaala rasuulullaahi sala allahu alay wasalam kuluu asafrajal, cuna safrajalka calaa riiqi fa inahu yadhabu canaa'a sadr. waxaweyaan laabta fadhiya ayuu ka kaxaynayaa ee cuna ayuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka waxyaalaha ku jira qaybta fiitamiinaadka haddaan ka hadalno, waxaa ku jira fiitamiin a iyo b ayaa ku jira. maasha allah, waa labada ugu wanaagsan. waxa weeyaan diida waxa u wanaagsan ayuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. kuluu buu yidhi cuna safrajalka, wuxuu kaxaynaya waxa laabta fadhiya oo dhan. haddaan ka hadla qaybta fiitamiinaadka waxa weeyaan waa alif iyo ba amba a iyo b weeyaan. mawaadka ku jira macdaniga ah alkabriit, alfosfoor, alcalcium, albotasium afarta ayaa ku jira. kolkoors waxaa idhaad fiitamiin a iyo b. asxaabta insha allah wakaa waan googooyey
dabka ayaan saaray insha allah. Markuu yar faxo in yar karsamo sonkor ayaan ku dari doonaa insha allah. waa aday markuu jilco unbaa la cuni karaa. maasha allah, waa dawo, ha laga faa'iidaysto insha allah. waxa oo maxaa la haddaan ka hadlo samaarkiisa amba lafaha yaryar aan ka hadlo ee dhexda ku jira, dabka ayaan saartay. wuxa uu faa'iido leeyahay haddii la cuno lafaha yaryari. beerka haddii uu daciif yahay amba uuna shaqaynayn, faa'iido badan ayuu leeyahay. waxaa kaloo faa'iido leeyahay waqtiyada haddii sun oo kale aad lagu siiyo, faa'iido u leeyahay. waxaa kaloo faa'iido leeyahay madax xanuunka badan. waxaa kaloo faa'iido leeyahay haddii ay waxa weeyaan ilkuhu amba ku xanuunayaan, amba waxaa kaloo uu faa'iido leeyahay waqtiyada qaboobaha. qabow badan hadduu ku hayo faa'iido leeyahay. haddii ay maad aragtay kaadidu ku goyso, faa'iido leeyahay. hana laga raali hado, waxaa karsamaysaa safrajal ayaa karsamaya insha allah. waxaa kaloo faa'iido leeyahay dhididka waxoogaa jirka ka soo baxa wanaagsanin ayuu udgoon ka dhigayaa. waxaa kaloo faa'iido leeyahay caloosha haddii ay ku xanuunayso, faa'iido u leeyahay, ha laga faa'iidaysto. laakiin haddii aad u cuntid adiga oo gaajoonaya, haddaad cuntid dhibaato ayuu keenayaa, amba calool adayg ayuu keenayaa. haddaad cuntid waqtiga aad gaajoonaysid, dhibaato ayuu caloosha u keenayaa. caloosha ayaa kuga xanuunaysa, taasoo keenaysa inay adeeg ay ku noqoto. marka insha allah beerku faa'iido leeyahay, markaa laga faa'iidaysto. geedkan kale waxa weeyaan isaga qudhadiisa haddii ay maxaa la yidhahdaa ku hayo caloosh oo caloosha xanuun ku hayo, waxaa kaloo faa'iido leeyahay dhanjafka amba madax xanuunka dhinac markuu aad madaxu kuu xanuunayo, faa'iido badan ayuu u leeyahay. marka waxa weeyaan laga faa'iidaysto oo ha la cuno. kanna marka waan ku dhex karinayaa, waa samaarkii weeyaan, waan ku dhex karinayaa isagiyo safrajalkaan isku karinayaa. marka insha allah waan ku dhex dari doonaa asxaabta sidaa loo ogaado insha allah, luna la socda. waana idiin sheegay fitamiin A iyo fitamiin B ayaa ku jira. mar labaad haddii aan idigu soo celiyo 4 waxa weeyaan faa'iido kale oo waxa weeye fitamiinaadkaasa sida alkabriid, alfosfoor, alkalsiyum iyo alpotassium ayaa ku jira. marka ha laga faa'iidaysto insha allah. aad ayuu faa'iido u leeyahay, maadaama uu yiri rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam cuna uu yiri, caleemihiisuna faa'iido badan ayuu leeyahay. gabadha haddii uu ku joogsado dhiigu ku joogsado, waxa weeyaan uu ka keenayaa. waxaa kaloo keenayaa haddii uu maxaa la yidhahdaa shuban oo kale ayuu waxa weeyaan uu kaa joojinaya. faa'iido u leeyahay waxa weeyaan carabka iyo afka waxyaalaha finanka yaryar ee ka soo baxa, faa'iido u leeyahay. marka asxaabay ha laga faa'iidaysto oo ha la cuno waqtiyada qaboobaha iyo waqtiyada hargabka ku hayo. haddii ay waxa weeyaan waxaa kaloo faa'iido u leeyahay laabta haddii wax kuu fadhiyo, waxa weeyaan xinjir oo kale. laabta haddii ay wax kuu fadhido oo dhan waa ka dawo, oo sidaas ayuu u leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cuna. marka insha allah haddii ay dhibaato kaa haysato, ay meesha cuntadu marto amba wuxuu ka kaxaynayaa yaziil hadab, meesha cuntadu marto ayuu wanaajinayaa. waxa weeyaan wadaa laakiin dhibaatadiisana insha allah waan ka hadli doonaa. markaa wuxuu hagaajinayaa waxa weeyaan meesha ay cuntadu marayso. waxaa kaloo hagaajiyaa codka ayuu hagaajiyaa, iyo waxa weeyaan codka hadduu kaa xumaado ayuu hagaajinayaa. marka ha laga faa'iidaysto insha allah. waxay dhahayd codka ayuu hagaajinayaa, laakiin haddii la isku badiyo waa bilcakis. haddii la isku badiyo oo wax badan la cuno, wuxuu keenayo dhibaatada uu keenayo ayaan ka hadlaynaa. safrajadku waxa weeyaan haddii la isku badiyo wuxuu kaa kaxaynayaa, codka ayuu kaa kaxaynayaa oo wuxuu xumeynayaa
halka cunaha ayuu kaa xumeynayaa. markaa la iska ilaaliyo. waxaa kaloo xumeynayaa sanbabada, uma fiicno isaguna haddii aad isku badisid sanbabada ayuu xumeynayaa. waxaa kaloo dhibaato u keenayaa meelaha ay hawadu marto ayuu dhibaato u keenayaa. marka insha allah in la isku badin insha allah waa idin tusi doonaa. iminkana waxaan ku dari doonaa insha allah lafaayar baan ku darayaa insha allah haddii ilaahay idhaahdo. marka insha allah laga faa'iidaysto. geedka aad buu faa'iido leeyahay. insha allah jam baan ka sameynaya amba malab baan ka sameynaya insha allah. asxaabta waxaan rabaa insha allah inaan sonkorta ku darsado. sonkorta waxaan aniga jecel macaanka badan ma jecli. waxaan jecelahay sonkorta brownka ayaan ku darsanaya insha allah. laakiin qofku hadduu macaan badan jecel yahay waa ku darsan karaa ta kale, laakiin waa inuu isleekeysiyaa insha allah. wax yar ayaan aniga jecelahay inaan ku darsado. asxaabta halkaa waxay taalaa 7 yaro xabadood oo qorfiyo yaryara dhaamba dhaga yari waan ku darsanaya insha allah. udgoon sida u yara noqdo. asxaabta halkaas insha allah halka kalarkii waa isbedelaya. isna noqday kalarkii waa isbedelay insha allah. malabkaan ka dhigi doonaa insha allah. asxaabay wakaasi insha allah waanigaa ka soo saaray qurux maasha allah. saasuu noqday. malab ayaan ini tusi doonaa insha allah. wakaasi waan yar jajabinaynaa. asxaabay wakaasi insha allah malabkii wakaasi inaga arkaya maasha allah. asxaabay iska samaysta maasha allah. laabtuu dawo yahay. waa haddii uu jiro isaga oo samaysana asxaab iibsada waa dawo ayuu yiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. marka ha laga faa'iidaysto insha allah. wakaa malabkii waa jam maasha allah. waana dawo ma caruurta la siin karaa. laabtoo dhan buu safeynayaa. waxaa kale oo midhaha yare ku jira wuxuu u sameynayaa inuuna kaa xumaan ayuu kuu hagaajinayaa. ma kaa xumaanayo. marka wakaa asxaabey inaga arkaya malabkii wakaasi wuu sii adkaanaya. marba marka ka dambeysa ayuu adkaanayaa insha allah. ha laga faa'iidaysto. waa laga faa'iidaysto. waa dawo ayuu yiri. waxa weeyaan xanuuno badan ayuu ka dawo yahay. marka asxaabay ha laga faa'iidaysto. maadaama uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cuna ha laga faa'iidaysto. wakaasi bal waxaan ka saaray safrajalkeena. bal insha allah xabad baan soo qaadayaa. wakaasi wakaa insha allah. malab baa ka soo baxay insha allah. asxaabay insha allah shookada yar ayaan ku eegaynaa insha allah. wakaasi uu karsamay maasha allah. 20 daqiiqo ayuu ku karsamayaa. marka insha allah asxaabay saasi roodhidaad ka marsanaysaa maasha allah. sidiisa ayaad cunaysaa insha allah. anu waan cunayaa insha allah. ilaa noo barakeeyo insha allah. maadaama rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam cuna waa dawo ayuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam. ha laga faa'iidaysto dhammaantiin. aad baa idin salaamaya. ka faa'iidaysta. waa fursad qaaliya insha allah. asafrajal ayaa la yidhahdaa. aad baa idin salaamaya dhammaantiin. walaalihiina kale noo sheer gareeya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.